أنا مقعد عسكين بري واحد هذا نجيب سعيد عثمان وحنا إنجنير كسرعة تلفزيون يونيفرسال وحنا ديار بري لا شعيب عبد الرحمن قفكوا ياي هذا اليوم حنبات كوه إنسانية محاكل هذا أي ما سوينا لكن شعيب يره وهو الكاد هذا يره هالكافردية ومد كميدا مرايضة هنقول هذا النهدي أن هيدا اليره ده غير الجيسة شعيب عبد الرحمن محمد ومقعيس وصدحان شعيب وحسن ردي لو كن يلا وكل شيء حافظ كميدا حافظة الجيسة ولا هذا ستار وحاول دكسي هوسر ده حكى بحي دكسي قلان تهوده دكسي دولية هذا وحاول فصل كقوات إيه كي هاي دكسي الإرشاد شعيب عبد الرحمن وكل شيء ردي لو كن يلا وكل شيء هذه إلى بنتي مناسب ووجهي وأنا استحي كنت بوجهتي محمد على دادي سوق شعيب عبد الرحمن وولد في فرعون وأكون على المكتب سيدو كلا شعيب وحافظ القرآن وأقوم يستعملون بيزون كيسة القرآن شعيب عبد الرحمن وولد في فرعون تايو محاكل على كسونتان dadka kale Shucayb Abdirahmaan waxa ku aqaana wiil jecel danta dalka iyo dadkiisa aan ku fikirin dalalka Yurubka sidoo isagu maasooyinkiisa ku cadeynayo Shucayb Abdirahmaan anagu waxaan isbananay sanadii 2005 halkaas oo isku baranay xaafadda Star maruu noogu yimi xarunta telefishinka Star oo ahaa hawlweynadiis Shucayb Abdirahmaan maalintaan isbaranay gabayada kuma aqoonin sidana maanta u taqaanaa nacaan u ahayn شعيب عبد الرحمن وحنا سبرنا يسقو ويل عادية أو عن ما سوين كانوا ما تهينا هيدا بس ما توحنا سنقنا يسقو سوبر ستار إلى هذا يوم الكفارنا الله بس الحال استقبل الدكتور يقول إيدونا هذا يسقو حين نورني هذه كلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين waxaa mahad iskale Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo inoo fudeediyay inaynu xafladan ballaaran inoo qabsoonto marka labaad waxa la yiri ma la yashkurilna sala yashkurillah waxaanu mahad celinayaa bulshooyinta ku dhaqan gobolka Awdal sida quruxda badan ee inoo soo dhaweeyeen kolleeyde sheekooyinku iska badiyeen qaarna barbaan idin ku dhigi doona qaarna oo aan idin soo horeysiin doona iminka waxaan idin hayaa sheeko la yiraahdo dhudi saaka muuqato waa inaan magaceed maansadan waxaan sameeyay markii uu socday tartankii ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ku sugan Hargeysa Stadium markaa qolo injineerka iyo la socdo ciyaarta duubiyay kadib markaa aan garoonka dhex fadhiyay inaan ciyaartooyba markaa show laba double buu kacay markaa waxay soo jiidatay laba double shan inaan ku kacayo markaa waxaan yara damcay waa tii hore loo yidhi habluuna ninka amaanay jeceliine bal inaan yara amaano oo haddaan amaanay bal garoonkan iyo bal double shan inaan ku yara kacayo aan bal ku amaano markaa waan bilaabay maansada waxaan ku bilaabay dhawaaqayga maanseed afkaygii ka dhowro dharaarahanba maan tirin gabay laba dhudlaa iyo jiiftooyin dhaadheer oo aan dhammaystiroon humaagyada dhex joojoon ku dhadhabay ekeeyaha hibadhalada weeyo dhanka xun ma geeya arrimaha dhukaasha waxaan ku dheerahay dhadigiyo ammaantood ee dhegaysta caawna dhudiyaan ammaane waxaad iiga dhigan tahay dhulkoo roobku helayo dhiiqadii daraaddeed deeldheeligeedii dhiikacaa tidhi xubnahaagan kala dhigan nin dhugtaaba kuleeya markaa dhaafta falanqee dhalxaash adiga kugu sheeg gaari dhoobo kugu sheeg wuxuu dhaman qurxoona dhakadeedu weyn ama dharbaa ku hoos jira marka halka waxa soo yari gelinaya dhabashii soo jiidatay moogtay Allah yaa dharbaaxo dhamal biitu la taga waa inantii moogtay ha dhacdo ha suuxdo hana dhababacayso toos u dhaqaaqday maansadaas oo iyadu inta ahayd waxa kale oo jirta maansa kale oo iyada la yiraahdo kadeed haddaba bal waa kana maxaa lagu kadeedmaya habeenada kamid ah aan oo qolaana saxabna la fadhina ayaa waxaan iska yeereysanaynaa dhanka adiga xasaawaha iyo waxa marka show nin kastaaba wuxuu ka sheekeynayay intuu la sheekaysto war waa heblaayo waa caynkaas halkaas digtaayo markii anigii mareysay ayaa waxaan garan waayay cid allaala ciidan ka sheekeeyo waxaan damcaynaan dadka sheekada ku yara darsado ragga iska dhex saari marisay moogti marka sheekaygu soo dhacdo ma sidan kadeed leeyahay sameeyo xun ku horyaalahay war ma haysan aniga jacaylka waxba iga soo maray maxaa ka soo maray baan guriyaysan ku bari baan inaan jeclaado wayna kaliyaata
inantaasi marbay Somaliland timi baan ku yidhi dalxiis bay weliba ku timi waxaan ku yidhi inanta filmaanta matashay Karina Kapoor la yidhaahdo oo suuqa Hargeysa maraysa ayaa iyadoo kaligeed bay taagnayd markaa show aktarra karo Hindiya ayaa la socotay markaa maan arkin inantii baan la hadlayo ii waran man kuriyo nahi iyo ma ku jira nahidii baan fahmi waayay markaa show inantii waa Hindiyada Soomaaliyada maaha adu markii dambe nin balaaya bana waskala hadado inantii af kasto kula hadaba markii aan noo inantii sabkarno si soo afkarno ani wali nambarkii qorin ayuunba mid feedho waa inantii halkan ka soo baxeen inantii gacanta iska qabsaday xanaaq dartiinta ku booday waan kii feedh la dhacay annagoo sidii soo haysana ayay konton kale isuuka ay yimaadeen markaasaan maasadantii waa kadeeda adduunka iyo kalgacaylka beentii may saaray koori meel galay Kariniya Hindi koor waaweyn aniguna kalkaygii kaartooyinkaygii yarta moo yar kala dhigay kalgacayl ma gaaxday Karinana dhankeedii ma karkariye laabtii kaalay may tiri haddayna tuwa Karina waxa tahay kafkaygo ka maarmi maayo kollaha iga dheeraan midkadeeda hoobaas kurkaa sare ka naaxoon kijadaba ka dheeraan BBC iyo kalluun iyo kabaabtaa ku naaxoo kaartooyin raacsaday yartii aan kabeeyeen kalgacayl ku beeree kurbanaysay awgay soo mukadiisu daba dhigan markaan helay kalaamka anna soo ma kurulan ilaa nin dhiig labaana laga qaaday oo ma kool garayno kaalay ma rado markuu yimi hortaydana isagoon kalaam celin waa Salmaan Khan moogtay soo laad ma ka bidsiifeeno kuma gelin shawana kurbanayo kurayni may qaadeen ninku keligii muu hayn kontareerahooda gacmo dheere waa koofindha waa laba dhiigii kululaa iyo show kalaam kale ayaa joogay goobta raggi markay kariyeen raasigu karbaasheen kuuskuusmay fayskii Karinina bid soo tiri qaadato kabteedii ka dhaa igaga saartay ninkeeda maare baldaawada korkayga ragii horta sidii waa kaga baxaan u jacayl dambada iskuma deeyno siinan taa la iga qaaday iskuma deeyin sheekada saddexaad iyadoo waa amaan bal kulli markaayna baa la amaanaya inkastoo sheekadaas hablo badan ka cadhoodeen haddana waa iska caadiyo markuu wuxuu jecel yahay waa kaftan bilaa turxaana marka waxa dhacday habeenada kamid ah dukaan horta tobanka markii gaadhay caanashiid yar banacba moogti anoo dukaan aan caanashiid ka kacbay jooga ayaa dukaankiina baa soo hadashay marka inantii baan iska jeclaystay inaan tan caanaha cabayo inaan iska amaano baro marka waxaan ku bilaabay inaan yahay musbaarkiyo sida mudaca dhoobani inaan yahay malqabadiyo sida marada jilicsani inaan yahay maraanta meelaha istaagtaa adiga iyo mucayda muuqaalka guud iyo midabkaada wadaagtaan adiga iyo mucayda inaan yahay musbaarkiyo sida mudaca dhoobani oo musbaarkiyo mudac waxba isma dhaamaan moogtay inaan yahay musbaarkiyo sida mudaca dhoobani inaan yahay malqabadiyo sida marada jilicsani inaan yahay maraanta meelaha istaagtaa adiga iyo mucayda waa inaan taageedeed moogtay muuqaalka guud iyo midabkaada wadaagtaan waxa tahay malaas iyo mafiiq reer ka guuro sida maqas xumaadiyo mid raws noqota duga kala qororta muuqaalkaaga inaan yahay marka aan ku eegaba moral jab qaado ma tagba ay qabtee muqaf waran baad orta amaantaas waxay noqotay amaan ragga qancisay amaanta kalena waxay ahayd anigoo horta cunto cunaya ayaa maasay ku soo dhacday marka waxaan idhi niyo horta waa kuna raggii hore waa kuna habla geel iyo wax ku amaani jiray sababtii waxaan u amaani jireen waxaas la qiimo lahaa aduu imika cuntaad cunaysaa cuntada maxaa ku jira bari baradha ku jirto way ku soo horeysay moogtay markaas aan baradhadan qiimeen leedahay horta sababtaan inaan ugu amaanay idii sheegaya baradhadan qiimeen leedahay nafta energy baysiisa waad ku naaxaysaa waad ku cayraysaa deen habluuna noloshu weeyano way kaabaanday noloshii marka waxaan idhi inay yahay bislaatay buskudiyo la xooxiyo bariiska wala mooday moogtay bugayga ibraadiyo la meenay inaad buruntiyo baraadkaba ka wacan tahay sidii dhar bislaado loo bibriyo bulshadii turtuma tahay sida loogu baahdaan in ku seela baaqa samoogan kaftan macbeed iyo boorash iyo wacnaa iyo bayto qamiiriye biyo iyo sharaabay barbarkaaga iga eeg sidii neberjatiga iyo bisha akhirkeedii lacagtii u baday markii tijaablaysto furqanaay hadalkii ayaa aan bareeqay baxsanay ka dhiganahay marka aan badhaaday fiskaaga oo isku birshaashada naftu baadi weeye baradhay tamaanay baastiye dhanaanay muusiye babayay baraareen ha joogteen aan xoog bixiyo boqolkiiba soo mihiigayga barbar maadaama inta hablo badan caroodeen war waxay dhigin ka waxay dhigeen hablaha ka todoba boqolkiiba oo markaan hablaha isu sharaxay oran jiray naa kureyda magaalada iyo kooxaha la sheegay kabtankoodii baan ahay kiriimkii diyaanada aad korkaaga marsana ninka keenay baan ahay laakiin se caawa halka rag baa iga qaatayba horta sheekada si sheer
waxay ku timi waxaana sameeyay anoo ku sugan gobolka Boorama sababtaan ku sameeyayna waxay ahayd magaalada Hargeysa horta dalxiis sugan nimi annagoo ardayya markaa show intaan u dhexda soo soconay baan sawraaniyo wax soo galgalayo ragii maalinta la socday way joogan Cabdilaahi Riidaash waa kamid ah baday geliyeen markaan u dhexda soo soconay ma soo sawraan soo galo markaan Boorama marayno ayaa inaan baa sawraanta noo haysay Xamda la yiraahdo markaa show inamada iyo hablii bay Xamday wala sawraanta wixii aad dhagaysan noo soo dir markaa aniguna waa isqanciyo waxa jirtay dadka iska reebin aad u ilaa kulay qof faati sawraan galay anoo isqanciyo waxa ku wala ana sawraan wixii aad iga haysay iyo soo dir markaa show baa si share la yiraahdo markaa soo baxday ayaa jirtay aniguna mobile waxa sitaa horta ka oo waxaan mareynay inuu si share barahayn waxa dhacday intii bay ku tiri wala si share ta faraanku u diray si share tiba fahmi weeyba waxaan sheegay markaa nin magaalo ku nool baa tahay hatta tira si share ta garan maayo oo waa ceebo waxa dhacday bari nin baa magaalada ku noolaa wuxuu haardayda magaalada daado ciyaal magaalaha kadib wuxuu qabtay miigu qabtay miigana waxa jirta show aroosyada miiga in su'aal la isku weydiiyo ninkii su'aal baa la weydiiyo waxa lagu yiri karuur caana geeliyo iyo kulan karsiime midkee u dhow marka isagu dawan in magaalo ku nool anigoo kale ayuu ma garanayo moogtay marka wuxuu damcay inuu dadka maskaxdooda iyo meel kale ku jeeyay wuxuu yiri often ways go always arfeeb way u dhigantaa English ma noqon sorry way ku adagtahay buu ku jawaabay dadkii way yaabeen wuxuu waxan xuqaad marka waxa sidii si ninkii ha noqonine bal adoo maxaa la leeyahay markaasaan ku walaal si sharti bilaada bayga heedo gurigii baan kaga yimiye runtoodkii ugu dir runtii aad waa lagu qosqoslay horta markii lagu qosqoslay ma gartay inaan horta faawul galay offside galay khalad sameeyay markaas inantii Xamdadii laftigeedii ayaan ku amaanay si sharti lawa wax iga yaabsay marka waxa la sida tahay nation league sometimes ka dhamaantay sometimes laga dirtay saddexda shirkadood mid walba faa'iidadaas la loo dasantay habeenkii oo dhawaad ku dhurmaysaa tala sometimes wax kale uma sidane saad iyo deegaanad adeegaaga moogtay marka haday faa'iidada dhamaatay baan ku riyo tala sometimes laga dirtay laptop wada laga helay wireless hadii caawiyay Facebook waxa soo dhigay Skype la iska daawaday WhatsApp la iska hadlay si share wax lagu dirtay messenger aad u fiicanay adoo aakhirkii waxa ku soo gabagabeynay quruxdaada qorshan karsan in la arkay rinku lagu jira markii ku eegan isku dhufta jaajuurkii aniguna sidoodan jeer oo ku eegaba taariikhdu ka caysan laba jeer ma tagaya kulay maasadaas si sharitaas ahayd waxaan raacin doonaa maasa kale oo iyadu ka hadlaysa abaarta kulay dalkii abaar baa ka jirta haddaad tahay halabuur ma aha inaad ku tarax tagto in dadka aad ka qusiso laakiin se waa inaad ka hadasho xaaladda dhabka ee jirta shacabku waxaan ugu talagalnaa inaan dadka ku raali gelino anigoo ka doonaya inaan samayn karno xaalad kasta oo timaada ayaa waxa dhacday habeenada ka mid ah 10 habeenimo daawanaya warka habeenimo soo galay TV-yada ku hadla afka Soomaaliga ayaa waxa dhacday waxaan arkay markaa warka waxa ku jirtay in University jira oo u dhimatay gaajo iyo macluul gobolka ku noolayd bay galuusan kadib markaa jirinco ayaa jirkayga qaaday waan dabqaday markaa maansadan abaarta ka hadlaysa ayaa sameeyay waxaana ku bilaabay ka qadeeyay qaafilka ah hadii qarni hore dhibco quwad weyn cirku qubi jiray dhulna qoyi jiray dad qulquli jiray xaalka quwad weyn qaabkan baa dhacay hadii qarni hore dhulku qiimiye qaayaba lahaa saka quruxiyo qormar rays laba qooriyay laga waa dhulkii qadowgiyo qoyaanka lahaa qodxiida soo wandooshe dadkii qiiriyo qayla dhaaniyo qoomamiyo ciil qortay kaymaha ay la qubayeen dadkan qarankiyo qurbaha joogo qolqol joogtiyo qurba joogtay dadkan qaxaya tumanka intee aan qadac ahayn haddaad qalisaan wax loo qabo waa qasaare wax la qaybsada wiilo wallow furqa sabadi oo nawada qoor dadkan qaxaya tumanka intee aan qadac ahayn haddaad qalisaan wax loo qaban waa qasaare wax la qaybsada libaax la ka soo qaatay inaan heer karan maanta taaganay soo gaadho runtii waa nin wariye ah oo ka tirsan TV-ga kalsan waxaana la yiraahdaa wariye Cabdilaahi Riidaash waxaan jeclaan lahaa inaan idin baro oo aan hortiina keeno intaan sheekooyinka bilaabin waxaan ka codsan lahaa Riidaash inuu soo yar istaago si aan dadka u baro oo aan una yiraahdo wad mahadsan tahay shukran Riidaash haska weerina masraxa asaasay Riidaash waa ninkan waa wariye ka tirsan TV-ga kalsan waa ragga qaybta libaaxa leh ka soo qaatay inaan maanta halkan aan taaganay soo gaadho waa qof jecel inuu qof kasto han iyo himilo leh
uu meel ka gaadho isagaan ku yar wareejinaa kadibna sheekooyinkaan noo bilaabaya magacaygu waa cabdilaahi maxamed faarax riilaash waxaan ahay wariye ka tirsan telefishinka caalamiga ee kalsan gaar ahaan magaalada hargeysa doorta abaan jimcaha iskuma cusbin haddaan igala sheekeeyo goortan abaan jimcaha isbaranay waxa ahayd ma dheerayn laakiin 2016 bay ahayd anigoo tv ku sugan oo markaasi la socdo aan la socday safarkii madaxweynaha ee ku gaaran bixinay dhammaanba gobollada Soomaaliland ogala socod tv-ga caalamiga kalsan ayaanoo tv-ga fadhiya waxaan arkay abaan shucayb oo wareysanayo wariye Khadar Kaafi oo imka naga maqan oo jooga Nairobi waraysigaas maanta abaan shucayb waqti ugu horeysay muuqaalkiisa wuxuuna ka sheekeynayay maasooyinka kala duwan ee isagoo wuxuu yaqaanaa amaane cayda hadda habla ku socota maalintii iskuulka ay horeysay meel la yiraahdo WhatsApp oo cafeteria ay iskugu yimaadaan wariyaasha ka warama Hargeysa dhamaanba TV-da kala duwan ee ka hawlgala ee ku hadla afka Soomaaliga markaasaan Shucayb baranay habeenkii gaadhigaan ku sii qaadaybo waa maalintii gooraysan xaafadooda arko waxaan geeyay xaafadooda waan sii wareysanay wuxuu iga sheekeeyay daadiisa xilligu dhashay kol akan uma soo kicin inaan hadal badan iraado waayo waa maalintii ugu horeysay aan madal ka hadlo teen kasta madashu ma ka waramaa moogti wuxuu qof yidhuumaan deeraadahay laakiin maanta way ugu horeysay inaan madal ka hadlo soo kala aad baan ugu faraxsanahay inaan boorama imaado horta aniga sheekaya 2015 aan ciyaal xaafada waliba ciyaal baadhiya ayaan imid boorama moogtay waa ka yar xanaaqayo maalinta waan lagu laayay ciid carafay ahayd maalintii labaad bay ahayd anigoo imika jooga xaafadda anoo markii dhawey joogay meelaha labadii ay Shucayb soo hadlay markaa gaari uu doonay inuu ku yimaado boorama ayuu waayay markaasuu igu yiri waxaan jeclaan lahaa Cabdilaahi maanta raacdid boorama dhibka doontana ku haato maanta kale maana ay wariyaashu iska nastaan oo hawlahooga 6 days kala ay wadaan ay ka nastaan waan ixtiraamay oo saaxiibkay qaaliga sidoo kale waxa ila socda wariye Cabdikariin oo imka kamarada inoo duubaya injineer Cabdinajiib oo Universal وانا جيبي وان soo raacay saasan daraadeed baan boorama ku yimid xafladda aan doonina farxadda la qaybsado saaxiibkay qaaliga Abaan Shucayb markii isu ka horeysay maaha meel wada tagno waxa ka horeeyay safar aan u baxnay Burco xilligan oo kale ahayd waxaan jeclaanahay Abaan Shucayb gabaygu iga sameeyay maanta ka akhriyo anoo filayo inuu maqlayo aad baad inii salaamay hadalka waan ku badiyay imaan jeclayna hadalka badiyo laakiin farxadda iyo dareenka aan la qabo saaxiibkay qaaliga abwaanka ee daada yar leh ayaan igu akhrifteen hadalkayga badiyo